السلام عليكم أصحابتا وعبد الغفار أحمد وإذا لنا سود هذا ما أنتم حتى جينا جوب قفل بقى كمبلا يوغندا إمادو آد وجعلنا هاي إنه ترى dalxiis ahaan ahaato ama wax kale ha ahaato idinkagama hordhacay video ku arki doonto waxaanu joognaa oo ku sugannahay hadda Gadaafi Mosque waa masaajid aad u baaxad weyn oo leh qaab dhismeed cajiib ah taasoo sawabtay inay dalxiisayaal badan imaadaan waa meesha ugu soo booqashada ama dalxiis imaatinka badan waa goob taariikhi u ah wadankan waxaa la furay sanadkii 2007 waxaana aasaasay oo loogu magac daray madaxweynihii hore ee Liibiya Korneel Macamar Gadaafi sanadkii 2013 ayaa magaca laga bedelay kadib dhimashada korneelka waxaana loo bixiyay National Mosque dalxiisayaasha aanan u sheegin wadanka waxaa lagu jaajukanayaa lacag $10 ah halka kuwa wadanka u dhashay aanan waxba lacag laga qaadin oo ay free ku booqdaan imaanshaha inaad masaajidka imaado waxba lacag ah kuma bixinaysid ee lacagta laga qaadayo qofka waa qaab dalxiis ahaan ah asagoo la raacinayo qof guide ah ama dadka soo dhaweeya dalxiisayaasha waxaa la saarayaa qofka dalxiiska ah manaarada dheer masaajidka ku caanbaxay waxaana la siinayaa oo loo sheegayaa macluumaadka taariikhiga ee masaajidka uu leeyahay masaajidka wuxuu leeyahay xarumo ganacsi sida dukaamo maqaayado iyo parking gaari ah wuxuu kaloo leeyahay madarasooyin duruusta diinta lagu bixiyo waxaa sidoo kale ku taalo maxkamadda ugu weyn ee muslimiinta ee wadanka Uganda ee loo magacaabo Uganda Muslim Supreme Court masaajidka waxaa halkii mar ku karto ku dhawaad jamaacadan 55 ilaa 60 kun oo jamaaco ah waana masaajidka ugu baaxadda weyn ee East Africa waxaa soo labeeyo oo lambarka labaad galayo masaajidka isbahaysiga ee ku yaala Muqdisho waxaana lambarka saddexaad soo galayo masaajidka Jamia Mosque ee Nairobi Kenya hadda galeynaa maqaayadii hore masaajidka ku taalo qaybta ganacsiga kamid ah gees uga taalo marka meeshaas xoogaha caloosha kusoo buuxinayna asxaabta haddana waxaan u socdaa library ama maktabadda masaajidka soo fiirinayna maktabad ayadan aad u weyn waaye inkastoo meesha mashquul ay tahay oo dad badan baa jooga wax ku akhrisanaya marka laakiin si kuwayda ku galeynaa meesha la socda qaybtan suka ku taala maktabadda masaajidka hadda joognaa waa codkeeda hadda maqalweedaan meesha duruusta ka socoto aad u mashquulsan dad badan casharo ku diyaarsanaya marka
maktabadda qaabkaana way ka tahay maktabad aad u weyn waa ay kutub nooc walba laga helayaa ma aha diina lagu turjumay sida carabiga ingiriiska faransiiska luqado aad u kala duwan marka haddii aad meesha imaado oo u baahan tahay inaad buugaag badan ama kutub badan rabto inaad search garaysid waa ka helaysaa waa u joogtaa meelaha iga dambeeyo waa qaab qaanad walba waxaa meesha ku qoran tahay ayadoo lagu soo dhajiyay waan tusayaa hadda meel aad mashquul u badan waa meesha booqashadii Gadaafi ama National Mosque in Uganda soo gabagabeynay maanta wax badan aan faa'iiday adinkana inaan faa'iideyna mataqaanaa rajeynaya ila faa'iideen sababtoo ah dadka imaanayo lacag ku bixiyaan inay meeshan imaadaan oo dalxiisayaasha annagana waxa waaye waa videoena ka daawanaysaa lacag la'aan ku daawanaysaa inaan meeshan wax badan igala faa'iiday Kampala dhan baa kor ka aragnay caasimadda Kampala wadooyinkeeda si ay kala baxaan buildingka wax walba meelo kalena sii tagi doona meelo waaweyn sida hadda mataqaanaa Uganda National Park oo kale meelaha museum oo kale meelaha soo tagi doona ayagana video macaan ka soo sameyn doona marka nala socda Moving out of focus, taking up my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me, supersonic. Supersonic.